runtii maanta waa maalin farxad weyn leh waa maalintii ciid al-fitrida ilaahay waxaan uga mahadnaqaynaa ilaahayna garansiiyey in soddonkii maalmood ee ramadaan aynu soo dhammaysano ramadaan runtii ramadaan barakaysan tahay ramadaan kaluu ilaahay nagu deeqay dalka intiisa badan subxaanaad ilaahay nagu deeqay ilaahay intii aan helin roobka ee weliba martay rooblaanta ay ilaahay ugu wareynaa ilaahay dhammaan degdega siiyo oo ilaahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel joogto iyo dhammaan islaamkaba abaaraha iyo qaxdiga iyo dhibaatooyinka ilaahay dhammaan ka saaraya ilaahay ka baryay shacabka loo sameeyay waxaa leeyahay sida aan sheegay waxaa lagu baahan yahay inuu wada jirano waxaan wada jirayna waa dadkeena iyadoo ay jirto marba iscaas ku jirayo daliishu ay jirayso haddana waxaa ka weyn baa waxaan maanta haynaa nabadgelyo baan haynaa nidaam iyo maamul baan haynaa inayna haysanin walaalyaha Soomaaliyeed ee ururteena ay degdeg u qaado marka inta dhiman inta dhiman yaa eegi Soomaaliya wanaagsan badan qabtay iyo horumarkeena iyo maanta isku tashigeena iyo nabadgelyo wadajirkeena ku soo ilaashay dadkooda sanadada labada aynu ku maqnaanayno in siyaasiyiinta loo baahan yahay alooshii wanaagsan iyo taageersiga ayuu ilaahay dadku gargaara ilaahay wuxuu ka baryaynaa in faqriga ilaahay naga saaro oo dadka ilaahay noo nuuxiyo ummadda islaamka dhammaan meel joogta ilaahay nuuxiyo hada badan Allah soo rumeeyay waxaa leeyahay walaalayaal inagoo walaalaha muslimiina dadka reer Soomaaliya dadka ashiyada sheegay ummadooda walaalaha isku afkiyadeera isku walaalaha waxa derisnimada iyo walaalnimada iyo Soomaaliyadnimada waxa jecelahay in aan loo wadaado oo midnimada u soo wajeysano doorashooyin baa ku soo qoole doorashooyinkaasi maaha in cunfu arko maaha cunfi waa tartan xalaala oo lagu tartamayno in dalka iyo dadka lagu dhiso doorasho si lagu ilaahay xalaala oo nabadgelyo waxaan ku tartamaynaa waxa weeyaan qabadka dalka qabyaaladda saala sheegay waa horey in asaasi loo qabyaalada waa qurux waxa maanta ummadda dhigay badan ama intay naga dhimanayaan xisay waxay naga dhimay waa qabyaalada runtii inaan ka qiimo gelino qof oo taray qabyaalada waxa ka taabin jirto waxaan isku taageeraa oo u badanahay dulmigii baan isku garab joogsanayna gardarrada isku daba joogsanayna waxaa loo baahan yahay qofkeena khatarin dhanka wada noqo dowladda waa la canaantaa waxaa la odhanayaa waxba lama qabanayo wadada lama banaynayo dowlad meesha ma jirto maalinta wixii wanaagsan lagu dhaqaaqana waxaa la odhanayaa bayar baa la barakeeyaa la odhanayaa waa labada jeer la iska daayo marna waxa la qabto marka wanaagii la qabanayana dee haddii wax la wanaajinayo dhibaatada cid bay taabanaysaa laakiinse waxa ka weyn ka guud baa ka weyn marka haddii la yidhahdo maanta la taabto ee wax la wanaajinayo dee oo guri umada loo baahdo oo maarta waddo umada loo baahdo ummad baa la barakicinaya haddii la yidhahdo isku markhaatisto waa nasiib darro waxaa wanaagsan in walba walaalkii ka ugu dhow inuu ku tawshayo maaha in maanta tuugii la qabto ama qofka dhibaatooyin geysto ma soo dabaqdo oo dhexdo habeen baa loo jeedaa yaana loo jeedaa waxaan leedahay walaalaha isku kaashano wanaaggaa isku kaashano midnimadaas isku kaashano wadajirkaas isku kaashano wixii dhibaatooyin